is Mahmoud Safari. I'm the Associate Vice President for Enrollment Management at St. Cloud State University. waxaan magacay u xaliido Dr. Mahmoud Safari waxaan mataqaanaa maamul ana waaya St. Cloud State University admission. My job basically means working with the entire campus community to recruit students, the type of students that we want who are going to stay and graduate and succeed. shaqadaydu waxay tahay oo leeyahay inaan la shaqeeyo dadka degan nawaaxiga St. Cloud ay aan jeclahay inay jaamacad yimaadaan ay heer sare ka gaaraan. One of the things that we are very proud of St. Cloud State University is the diversity of our faculty, staff, and students. waxyaabaha aan jecelnahay wuxuu leeyahay jaamacadda St. Cloud State University waxay tahay waxa ka shaqeeyo dad isku jir ah sida macallimiinta iyo ardayda. The diversity of our students definitely adds so much more to the richness of the campus environment. mar labaad aad baan ugu faraxsanahay yani ardayda ay kala gedisan ee wadamada qaarkood ka imaanayaan iskuulkeena dhigata. It really does make a difference when we have students from different countries, different cultures, different religions, different backgrounds. They improve, they enhance the quality of interaction both inside and outside the classrooms. wax weyn bay ka bedelaysaa marka aynu aragno carruurta timid dalal kale iyo kuwa dalkan joogo jaamacadda St. Cloud State ku yimaado marka gudaha iyo banaanka wax weyn bay u tahay. Please be proud of your religion, culture, values, beliefs, and your language. We have over 1,300 students of color on our campus. And we have over 1,100 international students representing over 80 countries. In the admissions office, if you look back